Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Magacayga waa Cabdiraxmaan, halkaad iga daawanaysid waa Abna Official. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Muuqaalkan waxaan kaga sheekeynaynaa dhaqaalaha Sacuudi Carabiya. Dhaqaalaha Sacuudi Carabiya waa mid ka mid ah 20 waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka iyo dhaqaalaha ugu weyn Carabta iyo Bariga Dhexe. Sacuudi Carabiya waa qayb ka mid ah kooxda loo yaqaan dalalka G20 ku bixiysan, iyada oo wadarta qiimaheedu dhan yahay 34.4 trilyan ee lacagta Mareykanka. Sacuudigu waxa uu leeyahay kheyraadka dabiiciga ah ee labaad ee ugu qiimaha badan adduunka. Waddanku waxa uu leeyahay kaydka batroolka ee labaad ee la xaqiijiyay, waana dhoofiyaha ugu weyn ee batroolka adduunka. Waxa kale oo ay leedahay kaydka gaaska dabiiciga ah ee shanaad ee ugu weyn inta la xaqiijiyay, waxaana loo arkaa awood tamareed oo weyn. Dhaqaalaha Sacuudi Carabiya wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay saliidda, waddankuna waa xubin ka mid ah OPEC. Sanadkii 2016, dowladda Sacuudiga waxay bilowday aragtida Sacuudiga ee 2030, kaas loogu talagalay si loo dhimo ku tiirsanaanta shidaalka iyo kala duwanaanshaha ilaha dhaqaale ee dalkaas. Kaydka saliidda Sacuudigu waa kan labaad ee ugu weyn adduunka oo toos ah kadib dalka Venezuela, sida lagu sheegay tirakoоб ay bixisay dowladda Sacuudiga. Waxaa lagu qiyaasay 260 bilyan oo fuusto, cabirkuna yahay 41 kiiloomitir cubic, taas oo u dhiganta 4 meelood meel kaydka saliidda adduunka in ay waddanka Sacuudiga haysato. Shidaalka Sacuudi Carabiya ma aha mid aad u badan ee wax soo saar, waxaa saaran cadaadis, wuxuuna u dhow yahay oogada dhulka. Tani waxay ka dhigaysaa mid aad ugu jaban oo ilaa hadda ka faa'iido badan in batroolka laga soo saaro Sacuudiga marka loo eego meelo kale oo badan oo adduunka leh kheyraadkaas dabiiciga ah oo ka faa'iideysan waayay fursadahaas si ay u soo saartaan batroolkooda. Qaybta batroolka ayaa qiyaastii ah 87% dakhliga miisaaniyadda Sacuudiga, 95% dakhliga dhoofinta ee dalka Sacuudiga, iyo 42% GDP-ga dalka Sacuudiga. Kaydka saliidda iyo wax soo saarka Sacuudiga waxaa inta badan maamusha shirkadda dowladda ee Saudi Aramco, waa shirkadda ugu weyn ee maamusha kaydka saliidda. 40% ee GDP-ga dalka Sacuudiga waxay ka yimaadaan qaybta gaarka loo leeyahay, macnaheedu shirkadaha gaarka loo leeyahay. Qiyaastii 7.5 milyan ajaanib ah ayaa sanadkii 2013 si sharci ah ugu shaqeeyay dalka Sacuudiga, iyaga oo door muhiim ah ka qaadanaya dhaqaalaha Sacuudiga. Tusaale ahaan, qaybaha saliidda iyo adeegga, dowladdu waxay dhiirrigelisay kobaca ganacsiga gaarka loo leeyahay sanado badan si loo yareeyo ku tiirsanaanta boqortooyada ee saliidda iyo in la kordhiyo fursadaha shaqo ee dadweynaha Sacuudiga. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, dowladdu waxay bilowday in ay u oggolaato ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo maalgashiyada ajaanibka ah inay ka qayb galaan, sida korontada iyo isgaarsiinta, inay ka qayb galaan oo ay maalgashadaan. Waxayna ku biirtay dalka Sacuudiga waxa loo yaqaan WTO. Intii lagu guda jiray sanadihii 2000, qiimaha saliidda sare waxa uu u sahlay dowladda in ay soo dejiso lacagta dheeraadka ah ee miisaaniyadda, si jadwal midaysan ay u sameyso oo ay ku dhihi karto miisaaniyad sanad hebel, miisaaniyad project hebel, intaas ayaa ku baxaysa. Kor u qaadida qarashka ku baxaya tababarka shaqada iyo waxbarashada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, iyo mushaharka dowladda. Iyada oo leh nidaamka boqortooyo dhameystiran oo dowladeed ah, qayb weyn oo dowladeeda, iyo bixinta daryeelka, Sacuudigu waxay aad iyo aad uga faa'iideysataa masna siyaasadeedu ay tahay in powerful ay ku ahaato Bariga Dhexe, ayadoo saaxiibo ka dhigatay wadamada waaweyn sida Mareykanka, Ruushka, iyadoo labada dhinacba ku leh
cilaaqad wanaagsan oo labada dhinac ay ku tahay mid yacni ay wada saaxiibo ay yihiin, dhinacna aysan si gooni ah aysan ula jirin. Taas ayaa u sahlaysa in powerful country uu noqdo oo dalalkan Carabeed ka dhex muuqdo. Waxaan rajeynaa hadduu Alla idmo insha Allah muuqaalka aad iyo aad inuu ku anfacay. Fadlan channelka Assalamu haddii aad ku alaikum cusub tahay warahmatullahi subscribe ta'ala si ay kuu soo wabarakatuh. gaaraan muuqaalada Waxaan xiga. idin bilaabay course magaceedu yahay How to Start an Online Business, yani si ganacsi online aad u bilaabi lahayd. Course-dan waxaa ugu talagalay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka wada faa'iidaystaan. Dabcan waad dareemi kartaa in uu caalamku isii bedelayo oo technology-da loo sii socdo, soo marka inaad ka wada faa'iidaysataan. Course-da waxaa ku baran doontaan 8 qodob oo aad ku bilaabi karto ganacsiga online-ka. Sidee Alibaba alaab ugu dalban kartaa? Alibaba maxaa la dhahaa? Sidee alaabtaada Facebook ugu iibin kartaa? Digital advertising sida u samayn kartaa? How to make yani logo sida u samayn lahayd ganacsigaaga. Haddii aad u baahan tahay nambarka shaashada igala soo xiriir. Course fee-gu waa $3 hadduu Alla idmo insha Allah. Soo dhawaada.